kulanti wanaagsan idilkiinba ku soo dhawaada Baraarug Podcast. Baraarug Podcast waa barnaamij aan idiin soo gudbino bishiiba 2 jeer. Waxaan uga hadalnaa oo aad ku dhageysataan mowduucyo aad muhiim ugu ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Waa mowduucyo ku saabsan xuquuqda dhalinyarada iyo haweenka. Mar kale ku soo dhawaada Baraarug Podcast. Magacaygu waa Anfac Aadan Cabdi. Barnaamijkeennii hore waxaan uga hadalnay dhibaatooyinka gudniinka fircooniga iyo sida loo cirib tiri karo. Toddobaadkan waxaa barnaamijkeena uga hadlaynaa dhibaatooyinka dhanka internetka ay la kulmaan suxufiyiinta Soomaaliyeed. Dhageystayaal, Soomaaliya waa dal ay warbaahintu door muhiim ah ka ciyaarto gaar ahaan marka laga hadlayo wacyigelinta bulshada, gudbinta wararka ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda, iyo soo bandhigida dhacdooyinka la xiriira amniga, ku xadgudubka xuquuqda muwaadiniinta iyo kashifitaanka musuqmaasuqa. Sidaa ay tahayna, suxufiyiinta Soomaaliyeed waxay la kulmaan dhibaatooyin badan, gaar ahaan hanjabaadyo dhinaca internetka, xarig, cabsigelin iyo weeraro toos ah oo ka dhaca gudaha dalka. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee suxufiyiinta ka howlgalaan. Guddiga caalamiga ah ee difaaca suxufiyiinta sida CPJ ayaa diiwaangeliyay in ka badan 85 suxufi oo lagu dilay dalka tan iyo 1992 markaas oo hay'adda CPJ ay bilowday diiwaangelinta suxufiyiinta lagu dilo caalamka. Ciidamada dawladda oo ay ugu horeeyaan kuwa nabad sugidda, booliska iyo kooxaha hubeysan sida Al-Shabaab oo bartilmaameedsada suxufiyiinta, maamul xumo iyo cadaaladda oo daciif oo isbiirsaday ayaa horseeday in dhacdooyinka mahadhada ku reebay suxufiyiin badan, kuwaas oo danta ku riixday inay dalka isaga cararaan. Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee SJS ayaa warbixintiisa maalinta caalamiga ah ee xorriyadda warbaahinta ee sanadkan waxa uu ku sheegay in intii u dhaxaysay bilihii Janaayo ilaa iyo Abriil 2025 Soomaaliya iyo Somaliland ay kor u kaceen weerarada lagu beegsanayo suxufiyiinta iyo hay'adaha warbaahinta. Ilaa 46 suxufi ayaa la xiray muddadaasi 4 bilood ee ugu horeysay sanadkan 2025. waxaa sanadkan la dilay hal wariye oo ah Maxamed Abuukar Dabaashe, kaas oo ku dhintay qarax Al-Shabaab ay ka geysteen Muqdisho 18 Maaj sanadkan. Baraha bulshada iyo internetka waxa uu noqday aalad muhiim u ah suxufiyiinta ka shaqeeya Soomaaliya, waxaana SJS ay sheegtay in taasi ay ugu wacan tahay cadaadiska lagu hayo xarumaha warbaahinta oo sababay in wariyaal badan ay ka tagaan xarumaha warbaahinta ee jiray una wareegaan dhanka baraha bulshada. Facebook, TikTok iyo YouTube ayaa noqday 3 barood ee ugu horeeya oo ay suxufiyiinta Soomaaliyeed u adeegsadaan baahinta wararkooda, iyadoona dadku ay hadda sii kordhaysa xogaha iyo macluumaadka ay uga raadsanayaan dhanka online-ka, taas oo ka caawisay kororka helitaanka internetka raqiiska iyo telefoonada casriga ah. Hase ahaatee, nasiib darro, xitaa baraha bulshada hadda ma ahan meel amni ah oo ay saxafiyiintu si nabdoon uga soo gudbin karaan aragtidooda si xor ah. Waxaa si isdaba joog ah loo beegsaday akoonnada suxufiyiin xarumo warbaahineed oo qaarkood la xiray muddo kooban, qaarkoodna gebi ahaanba hawada laga saaray. Suxufiyiin oo kaliya ma ahan dadka weerarada internetka ay saameeyeen, ee waxaa sidoo kale jira weeraro caburin ah oo abaabulan oo lagu qaado dadka dhaliila dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Mowduuca barnaamijkeena Baraarug waxaan kaga hadlaynaa xaddiga weerarada internetka iyo saameynta ay ku leeyihiin suxufiyiinta iyo dadka kale ee aragtiyaha kala duwan soo gudbiya. Sideese looga hortagi karaa weeraradan? Waxaana marti inoogu ah barnaamijkeena toddobaadkan Cabdifataax Cali Maxamuud, gudoomiyaha hay'adda maxalliga ee Digital Shelter oo ka shaqeysa badqabka online-ka iyo xuquuqda digitalka. waxaana sidoo kale la hadalnay qaar ka mid ah suxufiyiinta dhawaan la kulmay weerarada internetka oo iyagana aan weydiinay aragtidooda. Waxagaag dhageystayaal, waxaad fariintiina iyo aragtidiinaba aad inoogu soo diri kartaan baraheena kala duwan ee baraha bulshada sida Facebook Baraarug, YouTube Baraarug Campaign, X ama Twitter Baraarug Som, Instagram Baraarug Campaign, Telegram
baraarug campaign. haddii aad tiktok isticmaasho inaga baar baraarug soomaali ama whatsapp nambarkeena 9281015 oo aad inoogu soo diri kartaan dhammaan fariimihiina haddii ay ahaan lahaayeen maqal muuqaal ama qoraalba waan soo dhaweynaynaa. markaana aan soo dhaweeyo cabdifataax cali maxamuud gudoomiyaha hay-adda maxalliga ah ee digital shelter oo ka shaqeysa badqabka internetka iyo xuquuqda digitalka. cabdifataax kusoo dhawow baraarug podcast. aad iyo aad u mahadsan tahay. marka hore waxaan rabaa inaan maartay mahad ballaaran ka bixiyo sida loogu casuumay barnaamijka baraarug haddaan wax yar sharaxaad ka bixiyo. horta magacayga waxaa la yidhahdaa cabdifataax cali maxamuud, waxaan ahay gudoomiyaha hay-adda la yidhahdo digital shelter. digital shelter waa hay-ad maxalli ah oo ka shaqeyso arrimaha xuquuqaha danabeysan ama wax loo yaqaano digital rights iyo sidoo kale badqabka internetka. marka waxaan sameynaa barnaamijyo iyo programyaan sameynaa oo isugu jiro dhisidda maaragtay tababaro inaan siino dadka dhalinyarada, sidoo kale journalistayaasha, gabdhaha iyo cid alla ciddii maaragtay aan u aragnay in bulshada ay ka mid tahay haddana ay u baahan tahay cilmigaas. sidoo kale waxaan sameynaa cilmi baaris ku saabsan arrimaha oo digitalka iyo internetka Soomaaliya. sidoo kale waxaan qabanaa shirar ama conferences ama kulamo oo aan isugu keenno dad maaragtay ehel u ah arrimahaas si ay maaragtay ay u sameeyaan doodo micno leh. marka hay-adda waa hay-ad maxalli ah shaqeynaysayna ilaa iyo 2019 waxyaabo badan iyo shaqooyin badan ka qabatay qaybo badan oo wadanka ka tirsan. sidoo kale waxaan xiriir fiican la leenahay hay-adaha oo sidiinoo kale uga shaqeeya arrimaha internetka iyo digitalka maaragtay dunida kale ka dhisan. marka intaasaan hadda kusoo koobaya arrimaha la xiriiro digital shelter waxay tahay magacayga. aad u mahadsan tahay saad noogu sharaxday digital shelter waxa ay qabato. laaga mahadcelinayna runtii waxa rabaa su'aasha koowaad ee barnaamijkeena maanta ee ku saabsan weerarada saxafiyiinta ee kala kulmaan online-ka. maxay tahay cabdifataax in ay yihiin khataraha ugu badan ee saxafiyiinta ay kala kulmaan dhanka online-ka? aad u mahadsan tahay mar kale. su'aasha horta haddii aan intaan su'aasha u gudagelin waxaan rabaa inaan maaragtay aan sheego in hay-adda digital shelter ay sameysay cilmi baaris sanadka markuu ah 2021 oo aan soo bandhignay. cilmi baaristaas oo aan ka sameynay wadanka qaybihiisa kala duwan marka laga reebo Somaliland oo aan tagnay maaragtay maamul goboleed walbo annagoo markaas raadinaynay xog la xiriiro siyaabaha ama culeysyada maaragtay dadka oo journalistayaasha ama maaragtay warbaahinta ka shaqeeya iyo dhalinyarada ka shaqeysa arrimaha social media iyo internetka dhibaatooyinka internetka ay kala kulmaan. waxaan booqanay 5 maamul goboleed wadanka uu leeyahay hadda Puntland, Galmudug, Hirshabelle, Jubbaland, South West State iyo sidoo kale magaalada Muqdisho. oo aan ka qabanay cilmi baaristaas waxaan wareysanay dad badan aan wareysanay oo isugu jiro maaragtay qaybahaas hadda aan sheegay oo dhalinyaro iyo maaragtay dad ka shaqeeyna markaan maaragtay su'aalaha ka jawaabayo iyo wixii kale oo aan ku dari karo. marka taas waa horudhac si aad u ogaatiin mar walba haddii aan soo xigto inaan maaragtay la socdo. hadda su'aasha dib ugu soo laabto dadka warbaahinta ka shaqeeya ama wariyayaasha horta waxay ka mid yihiin bulshada. qaybo kamid bulshada waa waliba maaragtay shaqo xoog leh oo haya bulshada oo haddii aan lahayd inay maaragtay warbixinada soo gaarsiiyaan, inay maaragtay adduunyada kale ay ku xiraan, in maaragtay wacyigelin ay u sameeyaan bulshada. marka dhibaatooyin badan ay kala kulmaan online-ka sida dad kaleba ay ula kulmaan, haddana si khaas ah ayaga waxa u saaran culeysyo kale ama dhibaatooyin dheeraad ah. sababtan waxay tahay inay yihiin dad maaragtay si gooni loo bartilmaameedsan karo, magacyadooda la yaqaano, wajiyadooda la yaqaano. marka waxyaabaha aan soo ogaanay cilmi baaristaas markaan sameynayay waxaa kamid ah caqabado badan inay kala kulmaan online-ka ama digitalka. midka ugu horeeya ama ugu daran waxay tahay waxa loo yaqaano jabsiga akoonada ama in maaragtay barahooda maxaa la yiraahdaa online-ka in la jabsado, hadday noqon lahayd social media, hadday noqon lahayd email-adooda. waa hacking wax loo yaqaano, taasoo micnaheedu tahay qof oo aanan maaragtay shaqo ku lahayn akoonkaas inuu la wareego akoonkaas kadibna maaragtay sidoo u maamusho. marka hackingkaas ama waxyaabaha loo yaqaano jabsigaas wax ugu badan oo ay la kulmeen kamid ah. waxa kaloo kamid oo number 2 soo galay markaan aragnay in magacyadooda si maxaa la yiraahdaa been abuura
magacyo kale inta loo samaysto dadka lagu maartay maran habaabiyo tusaale ahaan haddaan tusaale soo qaato wariyaal dhaho ka soo qaad Mr X ayaa waxa laga sameysanayaa isla akoonkii mid lamid ah sawirkiisa la soo saaraa kadibna marka dadka halkaas laga jahwareerina marka caqabadahaas ay kamid tahay waxa kale oo kamid ah in ay la kulmaan hanjabaado oo ama wax loo yaqaan cyberbullying markii af English kala fiiriyo taasoo ah in qofka loo soo marsiiyo barihiisa bulshada hanjabaad waxay noqon kartaa marka siyaabo kala duwan ama fariina caadi ah loogu soo diraa ama maaragtay commentiyada boostiyada ay soo galiyaan loogu soo qoraa ama si kasto maaragtay oo qofka loogu hanjabi karo ayaa loogu hanjaba marka hanjabaadahaasna waa wax ay ka sheegteen marka saddexdaas qodob ayaa ah kuwa ugu waaweyn ay la kulmaan kuwa kalena way jiraan dabcan way suxufiyiinta Soomaaliyeed si joogto ah wax loo bartilmaameedsadaa waliba si sharci darro ah iyadoo la galo email-adooda baraha bulshada ama aaladaha fariimaha tani qatar ma gelin kartaa ayaa isleedahay xogaha sirta ee wariyaasha waa su'aal aad wanaagsan su'aashaas jawaabteeda kooban waa ha runta marka laga hadlo suxufiyiinta waxaan sheegnay inay bulshada shaqo weyn u hayaan runtii xoga waxay hayaan oo aad xasaasi u ah waxay wareystaan daday wareystaan hadii maartay si kale aan u iraahdo waxay hayaan maartay waxyaabo cadeemay hayaan waxay hayaan maartay xogo oo aanan wali la daabicin oo u baahan in la xaqiijiyo marka runtii waxyaabaha hadda aan soo sheegaynay oo kamid ahaa in maartay la jabsado akoonadooda haday dhacdo waxa xaqiiqo ah in maartay xogahaas oo halista inay u gacan galayso dad aan ehel u ahayn kadibna maartay laga yaabay dadkaas aan ehelka u ahayn ee xogahaas gacanta ku dhigay inay ku dhibaateeyaan isla saxafigii ama xitaa saxafigii maana dadkii xogahaas laga soo aruuriyay ama ilihii wararkaas laga keenay in loo gudbo marka runtii waa arin aad iyo aad maartay halisteeda leh marka waxaan maartay mar walba ku talinaa anaga iska digital shelter ahaan tababarar badan waa siin runtii warbaahinta wariyaasha kala duwan oo magaalada wadanka jooga waxaan kula talinaa inay maartay dhisaan aqoontooda la xiriirto sidii isku difaaci lahaayeen online-ka ama internet-ka marka runtii xogahaasi waa sax waa dhibaato badan ay keeni kartaa in maartay dad aan ehel u hayna gacanta u gasho hadda waxaa ka dhawaajisay Cabdifataax in aasiisan tababaro iyo isku difaaci lahaayeen wariyaal badan barnaamijkan daawan doona qaabkee suxufiyiinta ay ilaalin karaan akoonadooda digitalka ah in la jabsado tusaale Facebook WhatsApp iyo any platform social media ku leeyihiin in la jabsado sidee iska ilaalin karaan tababaro noocaasna ma siisaan aad ma santahay horta maxaa la yiraahdaa waxa laga yaabaa inaan hadda ku soo koobi karno halkan runtii maxaa la yiraahdaa siyaabaha isku ilaalin karaan haddii fursado kale oo waaweyn aan isku helno oo sida tababaro kale inaan maartay laga yaabo inaan u faa'iideeno laakiin haddaan soo koobno horta qodobka ugu weyn oo aan rabno inaan halkan ka baahino waxa waaye in lambar sireedka maxaa la yiraahdaa akoonada in si fiican loo ilaashado ama si fiican loo xoojiyo waa waxa loo yaqaan passwordska runtii waxay dhahaan dadka maartay khubarada ah ee arrimaha badqabka internetka ka shaqeeya passwordka waxa waaye difaaca ugu horeeya qofka marka di passwordka la soo gudbo waxyaabo badan oo maartay ka halaabay qofka marka in passwordkii la adkeeyo runtii marka laga hadlayo adkeeyana marka lagama wado in maartay wax oo la fahmi karo laga dhigo laakiin in qofka maartay inuu jabsado rabo in maartay uusan si fudud ku helin tusaale haddaan ku siiyo qofka inuu magaciisa ka dhigin inuu telephone numberkiisa ka dhigin passwordka inuusan ka dhigin taariikhda uu dhashay lacala haddii uu ubad leeyahay ama caruur leeyahay inuu caruurtiisa magacidooda uusan maartay passwordka ka dhigin marka taas waxay maartay haddii saas uu ka dhigo waxaa dhacaya in si fudud loo qiyaaso marka waxaa jirto dadka maartay hacking ka sameeya ama wax jabsada tabab badan isticmaalaan qofku waxay fiirinayaan dabeecadihiisa waxay fiirinayaan waxyaabaha uu jecel yahay xitaa magaalooyinka uu jecel yahay hobbigiisa ay qiimeynayaan marka su'aasha jawaab maxaan ka wadaa qodobka ugu horeeyo waa in horta la adkeeyo ama maartay passwordka la adkeeyo oo ilaa iyo laga dhigo 12 maartay jiifar oo kala ama 12 maartay maxaa la god oo isugu jira xarfo nambaro waxyaabaha loo yaqaano calaamadaha sida maartay calaamad su'aalka wix lamid ah marka taas waa qodob kale waxa waaye in aanan la isticmaalin waxyaabaha loo yaqaan public wifi-ga
waa meelaha maaragtay runtii ugu daran oo maxaa la dhahaa dadka laska soo galo marka qofka hadduu airport uu joogo ama uu meel maaragtay hotel joogo waxaa laga yaabaa inuu arko free wifi marka in maaragtay uusan isticmaal xataa hadduu isticmaalayo waxaa lagu taliyaa inuu isticmaalo software kaloo la yirahdo VPN oo difaacayo qofka maaragtay xogtiisa intuu ku jiro maaragtay maxaa la yiraahdaa internetkaas oo ku jiro waxaa kaloo kamid ah in si fudud aan linkyada maaragtay loogu dhufanin oo aanan gudaha loo gelin waxaa aragnaa mar walba in fariimo la isku soo diro WhatsApp-ka maxaa la social media oo leeyahay tusaale ahaan company hebel wuxuu sameeyaa discount waxaa helaysaa haddaad ku dhufatid maaragtay free maxaa la dhahaa go and back ticket ama iPhone lacag la'aan helaysaa waxaas oo dhan waxay u badan yihiin wax la yiraahdo dabine ay u badan yihiin oo qofka inuu inta ku dhufto kadibna si fudud loola wareego xogiisa marka waxaan isleeyahay qodobo badan waa jiraan anaga ka digital shelter ahaan maaragtay training noocaas waa bixinaa ayagoo maaragtay oo online iyo ayagoo maaragtay maxaa la dhahaa oo dadka isla wada joogaan وهجاج آد بومهسين عبد الفتاح علي محمود قدوميها هيئة محلية ديجيتال شيلتر وكشا قيساه بدقابك أونلاين كاي حقوق ذا الديجيتال كعبد الفتاح وعوشاقي إن دراسات أي سميين أي كوغادين إن ورياشا إنتو قبضان أونلاين كلاقا ويرارو مقاعيدو ذن السقال دون لو هذيك سدو وحو عبد الفتاح سدو كالي شاقي إن أي مهم تاي إن باسوارة ذا آد لساقات كيو public wifi gana ama internetyada publicana aad lisaga ilaaliyo maadaama xogtaada oo dhameystiran laga ogaan karo wariyaashana ay yihiin meesha kaliya xogta loo soo doonto sira badan ay hayaan muhiimna ay tahay inay aad uga taxadiraan weerarada ugu imaanaya dhanka internetka markana waxaan khadka telefoonka kula hadalnay qaar ka mid ah wariyaasha la kulmay weerarada dhanka internetka ah wariyaashan waxay sheegeen in ay tahay xorriyad ka qaadis inay tahay caburin iyo in lagu xadgudbayo xorriyada saxaafada maadaama wariyihii wax soo gudbiyaba bartiisa Facebook la weerarayo lagana xirayo waa kuwan wariyaasha oo baraarug la hadlay aad iyo ma santahay anfac mar kale runtii dhibaato soo jireen waay ma wax hadda bilowday iyo wax inshallah bilowday waa dhibaato soo socotay muddo badanna socota mana aha wax ani kaliya haysta dad badan ay arintan haysata oo ah kuwa hadla oo ka shaqeeya xuriyada hadalka iyo dadka inay aragtidooda ay dhiibtaan dhamaan waa la caburiyaa sida bulshada Soomaaliyeed ogtahay waxa laga yaabaa in qof uu soo galo warbaahinta asoo hal mar cirka maray in qofkii la waayo marka taas oo kale ay dhacdo qofkaas akoonadiisa ayaa la xiray ama akoonadiisa ayaa waxa gaaray damage ayaa gaaray waa la waxyeeleeyay oo waxa ku dhacay wax la yiraahdo community muuqaal laga tuuray ama sawiraan laga tuuray qofka ganaax ayaa lagu dhufanaya kadib waxa hoos galaya daalacashada iyo dadkii daawan jiray taas waxay ku abuuraysaa niyad jab aad u weyn ay ku abuuraysaa oo qofkii wuxuu ka niyadjabayaa inuu si isticmaalo internetka maadaama wixiisa ay damage ama dhaawac uu gaaray in badan oo kamid ah saaxiibadana si automatic oo toos ah ayaa hawada laga saaray laakiin ani shakhsiyan 2019 dhowr mar sidan oo kale way ugu dhacday laakiin hadda way ugu sii daran tahay waqtiga ay ugu sii daran tahay waxaa la isku dayayaa in wixii laga xiro laakiin ma soconayso isla markii waxaan qabsanaynaa looyaro iyo dad arrintan aqoon badan u leh waxaan la xiriireynaa shirkadaha arrintan qusaysa taas oo keenta inaan sii joogno laakiin mar walba waxyeelada way jirtaa oo waxaa la isku dayaa in muuqaalo laga tuuro muuqaalada sanad haddii mitalaan hal muuqaal laga tuuro sanad ayuu ganaaxa ku saarnaanaya sanadkaas waxaa mutaysanaysaa in hoos uu u dhaco quality page-kaaga uu lahaa ama platformka isticmaalaysa ha noqoto YouTube Facebook TikTok meelaha isticmaalaysa in waxaaga hoos ay galaan laakiin ilaahay fadligiis mar walba waxaan kaashanaa looyaro iyo dad aqoon u leh iyo ururada saxaafadda ka shaqeeya kuwaas oo aan ka helno garab weyn iyo saaciidaad ku aadan in wixii ay soo naqdaan marka mar walba waa la isku dayaa waana arrin aad culayskeeda u leh oo dhibaataha oo taagan oo jirta waa mahadsan tahay magacaygu waa maxamed saalax wariye madax bannaan oo fadhigiisu yahay Puntland Soomaaliya sidoo kalena ah asaasaha warbaahinta Ilsan Media oo dabcan ah warbaahin digital waxaan u adeegsadaa inaan ku gudbiyo baraha bulshada ee Maxamed Saalax Ilsan Media oo leh Twitter Facebook Instagram iyo TikTok inaan ku gudbino wararka iyo xogaha ee guud ahaan deegaanada Soomaalida Afrika iyo caalamka intiisa kaleba xoogana waxaan saarnaa wararka iyo dhacdooyinka degdega ah ee siyaasadda iyo bulshadaba markaas saameynta ku leh
runtii sanadkii 2024 dhammaadkiisii waxay ahayd muddo curyaamin iyo xayiraad u ahayd bahda saxaafadda iyo warbaahinta online-ka ah ila warbaahineed wariyaal iyo dad kale oo macno bulshada u leh isla markaasna ka hadla aragtidooda ayaa la xanibay oo anigu aan ka mid ahay bartayda gaarka ayaa ka mid ahayd goobaha la xanibay ee hawada ka baxay wuxuu ahaa weerar dabcan ay la kulmeen wariyaal dabcan waxa weerar ay la kulmeen wariyaasha Soomaaliyeed ee kala jooga deegaano kala duwan ilaa haddana ma jirto cid baaritaan ku samaysay bahdeena saxaafadda iyo saaxiibadeena saxaafadda ayaa dabcan sameeyay dadaalo badan oo in badan lagu soo celiyay laakiinse waxaa jirtay kalago iyo in dadka Soomaaliyeed ay waayeen muddo qaarkood saaxiibada qaar bilay maqnaayeen waxa la waayay xogtii waxa la waayay ilaahi warka sugnaa laga heli jiray sidoo kale wariyaashii isticmaalayay xilligaas aysan saameyn weeraradaasi waxa ay ka bixeen hawada iyagoo isqariyay oo ka baqay in la bartilmaameedsado weerarada lala eegto waxay ahayd wax ka dhana xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda qowlka guud ee bulshada Soomaaliyeed dabcan anoo maalintan ka faa'iideysanayna waxaan leeyahay saxaafad xora bulsho xora oo aragtideeda cabirta ayaa ah runta iyo waxa uu dalka iyo dadkana ay u baahan yihiin oo ay tahay in cid kastaba ay qadariso waa tahay dhegeystayaal kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah wariyaasha oo aan khadka telefoonka kula xiriirnay markana aan dib ugu laabano qaybtii labaad ee waraysiga aynu la yeelanay Cabdifataax Cali Maxamuud Cabdifataax saxafiyiinta gaar ahaan haweenka waxay wajahaan tacadiyo isku dhaf ah oo online-ka ah waxay wajahaan hanjabaado iyo sumcad darrooyin loogu talagalay aan iraahday ilaa iyo tan mataqaana lagu aaminsiyo ee saxafiyiinta ama keeni karta inay ka niyad jabaan waxay sameyn lahaayeen sidee gabdhaha isaga difaaci karaan ay kula tahay online-ka ama marka online attack waxa markasta u nugul gabdhaha waxa laga yaabaa Snapchat-kooda waxyaabo gabdhaha waa taqaanaa sawirro iyo wax marka see laftirkooda isaga difaaci karaan ay kula tahay aad u mahadsantahay horta su'aashan runtii su'aal aad muhiim u ah waxaana dhihi karaa gabdhaha oo maaragtay suxufiyiinta ama warbaahinta ka shaqeeya runtii waxay la kulmaan dhibaatooyin oo laba geesood ah si kale u yiraahdo sababtoo ah marka koowaad waa saxafiyad oo maaragtay dhanka saxafinimada waxay kala simantahay rag iyo kala simantahay waa mid hadda aan sheegayna in saxafiyiinta maaragtay rag iyo dumarba dhibaatooyinkaas khaaska ay la kulmaan ayagoo la bartilmaameedsanayo shaqooyinkooda dartood lagu bartilmaameedsanayo marka labaad waxa ay khaas ula sii yihiin dhibaato kale oo ah inay dumar yihiin ama gabadha yihiin marka runtii waxaan dhihi karnaa marka waa tacadiyo laba geesooda waaye ama laba heer isdul saaran marka koowaad horta waxaan maaragtay aan mar walba kula talinaa in maaragtay ay dhisaan maxaa la yiraahdaa aqoontooda la xiriirto isdifaacitaanka iyo maaragtay dhibaatooyinka soo gaara online-ka inay la tacaalaan runtii statistics-ka la sameeyo inta badan waxaa la arkay in dadka maaragtay wariyaasha kale inaysan maaragtay intooda badan aysan maxaa la yiraahdaa waqti badan aysan gelinin arrimahan la xiriira isdifaacitaanka iyo online maaragtay safety-ga ama badqabka internetka marka qodobka ugu horeeya waxay tahay inay sameeyaan qodobka labaad aan isleeyahay waa qodob kale oo muhiim ah waxay tahay inay sameeyaan iskaashi ama wax loo yaqaano maxaa la dhahaa support group ama maaragtay isbahaysiyo inay samaystaan dhexdooda ah si guudna wariyaasha rag iyo dumarba ay iskaashigaa samaystaan si khaasatan xitaa in gabdhaha laftirkooda ay sii samaystaan meelo isugu imaadaan dhibaatooyinka soo gaara ay iska taageeri karaan haddii u baahan yihiin in maaragtay caqabada oo la xiriiro digitalka dee la kulmaan oo kale meel ay kusoo warbixinta kusoo gudbin karaan oo kale inay samaystaan runtii waxaa kaloo aan isleeyahay waxaa intaasuna kasii muhiimsan in sharci adag loo sameeyo maaragtay dadka dhibaatooyinka online-ka ka sameynayo in lagu maaragtay lagula tacaalo taas marka waa mid guud oo wadanka dhan u baahan yahay haddana maaragtay haddana shaqadeeda runtii saan aragno wax laga wado marka taasna waa sidaasaan ku talinaa mar dhowd waxaa sheegtay in la adeegsado baasweedha adag oo lambarada ama magacyada dadka ama ehelkaba aan la isticmaalin adeegsiga erayo sir ah oo gaar ah oo isku dhafan oo adag mid kasta iyo akoonada kula tahay in lagu maareyn karo dhibaatadan digitalka
waa sax waaye waxaa jirto horta tallaabooyinka qofka uu isku difaaci karo saandaad soo sheegnay aad u fara badan yihiin laakiin waxaan dhahnay isticmaalka number sireedka ama passwordka adag waa difaaca ugu weyn uguna horeeya waayo qofka haddii maarata uu kaas iska adkeeyo ay adag tahay in maarata gudaha loo sii gudbo marka waxaa jiro maaragtay runtii tababarana waa ka bixinaa software badan oo la isticmaalaa jirto qofka waxaa loo baahan yahay oo qasab ah in akoon walba uu leeyahay inuu maaragtay ka sameysto wax la yiraahdo password khaas u ah inta badan haddii maanta su-aal la isweydiiyo dadka oo qof walba haddan dhegeysanaya ama fiirsanaya aan weydiino su-aal ah weligaa hal password mu isticmaashay dhowr akoon waxaa hubaal qof walba inuu gacanta taagayo taasna sax ma ah waxaa loo baahan yahay qof kasta in maaragtay hal akoon walba inuu hal password u isticmaalo passwordkaasna uusan noqonin mid fudud uusan noqonin haddaba su-aal waxaa imaan karto in la isweydiiye ah sidee qofka uu maaragtay passwordadaas tirada badan uu ku maamuli karaa maadaama laga yaabo qofka tobaneeyo ama in ka badan maaragtay 12 inuu haysto akoona ah marka meeshaas marka waxaa imaanaysa xalaa jiro ama software waxaa jiro wax la yiraahdo password manager oo loogu talagalay in passwordada lagu ilaashado marka runtii in marka aqoonta passwordada la dhiso aad muhiim u tahay waana tababardan bixinayna qayb weyn ay ka tahay marka taasaan ku dhiirigelinayna si joogto ah haddii loo cusboonaysiiyo qalabka telefoonada kombiyuutarada iyo barnaamijyada maxalin kartaa ay kula tahay daldalaalada amniga ee jira si loo yareeyo khataraha jabsiga waa mahadsan tahay runtii in maaragtay qofka uu cusboonaysiiyo ama uu mar walba maaragtay farshanka u dambeeya oo la soo dego softwareka isticmaalayo ama computerka ama mobileka isticmaalayo inuu mar walba update gareeyo ama uu cusboonaysiiyo horta waxay ka mid tahay aaladaha la isku difaaco runtana waxay tahay shirkadahan maaragtay softwareda soo saara ama aaladaha aan isticmaalna soo saara mar walba waxay qiimeeyaan ama ay la socdaan qalabka ay soo saareen wixii daldaloola oo ka soo baxo kadibna wix alla wixii daldalool oo halkaas ka soo baxo intay hagaajiyaan ay dana dib soo update gareeyaan marka qofka inuu marka cusboonaysiiyo device-kiisa ama soo update gareysto software-kiisa waxay maaragtay ka xalinaysaa daldaloolo hore loo ogaaday marka taas waa ku talinaa runtii waxaanba dhihi lahayn in waxaa jirto si maaragtay automatic ah qofka inuu xataa uu u saarto u rukunto in maaragtay mar alla markii update uu soo dhaco inuu systemkiisa uu hor ka update gareeyo sababtoo ah daldalooladaas badan oo la soo ogaaday oo dadka maaragtay wax jabsada ay soo mari lahaayeen ayaa mar walba la oodaa ama maaragtay la soo xaliyaa marka in softwareda la update gareysto device-yada version ku dambeeya isticmaal runtii xal weyn u tahay marka laga soo gudbo passwordka waxay ka mid tahay waxyaabaha kale oo qofku uu isku difaaci karo markii uu joogo maaragtay online-ka mararka qaar waxaa dhacda wariye inuu aflagaadiyo dowladda wax ka sheego barihiisa bulshada isla dowladdii ay isku dayday inay weerarto baraha bulshada laga rabay inay wax xaliso ama ay wariyaasha sharci lasoo saaro lagu ilaalinayo badqabka wariyaha ee dhanka online-ka runtii su-aashaan su-aal muhiima waaye waana haddii aan maaragtay dib idin xasuusiyo waa kasoo hadalnay kaliya in maaragtay qofka uu akoonadiisa u difaaco tababaro u qaato software u isticmaalo kaliya xal ma noqonayso xal waxaa noqonayo ama halkaas dabcan xal waayo qofka ugu yaraan asaga isdifaacay laakiin waxa ay si dhamaystirmaysaa markuu helo nidaam guud oo ilaalinayo maaragtay xogtiisa iyo maaragtay deetadiisa ilaalinayo taas marka waxaa door weyn ka ciyaareyso maaragtay dowladda ka ciyaareyso marka shuruuc in la soo saaro mar walba oo la xiriirto arrimahaas hadda waxaa waaye shuruuc badan jiro wadanka uu maaragtay horena loo sameeyay qaarna ay ku jiraan maxaa la dhahaa wadadii ay kusoo jiraan oo ay u baahan yihiin in lasoo maaragtay ansixiyo marka dhammaantoodna waxay maaragtay runtii wax weyn ka tari karaan ama ay sii xoojin karaan in maaragtay difaaca suxufiyiinta iyo maaragtay dadka isticmaal digitalka in lagu ilaaliyo marka runtii waa sax waaye sharci in la helo muhiim u tahay maaragtay difaaca wariyaasha wahagaagaad buu mahadsan yahay cabdifitaax waxa uu inoo sheegay inay wariyaasha tababaro siiyaan oo ay baraan sida isaga difaaci lahaayeen weerarada dhanka internetka uga yimaada waxa uu sidoo kale sheegay cabdifitaax in ay dadka ay tababarada siiyaan ay kamid yihiin gabdhaha maadaama gabdhaha ay iyagu u nugul yihiin weerarada dhanka internetka oo lasoo weeraro mararka qaar akoonadooda inta la jabsadana videoyo lagala baxo baraha bulshada lagu faafiyo waxuu sidoo kale sheegay in
aysan muhiim ahayn in wariyaha la caburiyo dowladana ay ka digtoonaato in mar walba ay weerarto akoonada wariyaasha soo gudbinaya aragtidooda. aad buu mahadsan yahay Cabdifataax gudoomiyaha hay'adda Digital Shelter oo ka shaqeysa badqabka online-ka iyo xuquuqda digitalka oo maanta barnaamijka Baraarug aynu ku wareysanay. waxaana barnaamijkeena uga hadlaynay weerarada dhanka internetka oo ay la kulmaan suxufiyiinta Soomaaliyeed. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga oo aad dhageysan doontaan horaanta bisha xigtana waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.